haddaba waxaynu ku bilaabaynaa saakay oo in badan oo barnaamijkeena aynu kaga hadli doonaa sheekada ku saabsan Donald Trump booqashada uu hadda dhow ku tagay magaalada Riyadh. haddaba booqashada intaan la guda gelin ayaa waxa leeyahay booqashadan mid ka horeysay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ku tagay ayaa jirtay Sacuudiga. waliba Sacuudiga uu 2 maalmood joogay waqtigaas shiru halka ku lahaa airportka Jeddah ayuu ka soo degay Malik Abdulaziz waa waagaas Biden wasiiradiisii ayaa la socda. Biden waxaa garoonka loogu diray oo ku soo dhaweeyay ninka gobolka Makka al-Mukarrama madaxda u ah Amir Khalid bin Faisal sidoo kalena ahaa mustashaarka ama la taliyaha boqor Salman. ninkaas soo dhaweeyay wax wasiira iyo wax meesha ku soo dhaweeyay dhan ma jirin. kadibna waa la soo kaxeeyay gaarigiisii madooba martida la soo saaray waa la soo kaxeeyay. marka ninkaasu qiimahaas la siiyay oo maartay cid madaxa waliyul ahdiga iyo wax tagay male. ninka gobolka Jeddah ka tirsantaa Makka soo dhaway gudoomiyaha gobolka. ninkaas xaalkiisu halkaas u aaliyay. Trump ku soo haray. Trump diyaaradda ayuu saarnaa marka uu Mohammed bin Salman dhulka cabaar ku sugay oo qoraxdu haysi indhaha ka marigsiinay. marka dadku waxay yiraahdaan meesha maxaa lax meesha isdhigto maareed ayaa lagu gowracaa Soomaaliya. marka ishiis laga arkaa ushiisa lagu tumaano way jirtay. marka ninka Biden aan iska maskiin oo allo saharo iska ah laakiin ninkanu nin caadi ma ah. nimanka carabta baadu ka qaadaya lacag ka qaadaya heshiisyo la galaya way ku kala tartamayaan. aniga hadiyadaasaan ku siinaya diyaarad 400 milyan joogto Imaaraadku xulay aniga saasaan ku siin ninkan lafahooda uga baqayaan lagu leeyahay. nimanka carabta nimankan lafahooda uga baqayaan ninkan waa iska laaluushayaan. marka waxyaabaha la yaab kale maanta dhacay waxa kamida intaana horta waxyaabaha gelin warbixinada laga qoray hadaan idin la wadaago saakay wararka soo baxay waxay leeyihiin. haddaba Al Jazeera waxa leedahay Trump wuxuu gaaray Sacuudiga booqashadiisa gobolka uu ku tagayo. madaxweynaha ayaa saakay tagay Trump oo talaada Sacuudiga ayuu tagay booqasho oo dibadda uga ambabaxo oo shaqo ugu horeysay ayuuna halka ku tagay. haddaba waxay qaadan doontaa booqashadiisa sida halkan ku xusan 4 maalmood. Qatar Imaaraadka ayuu sii mari doonaa. haddaba wuxuu saxiixan doonaa inta uu joogo halkaas heshiisyo waaweyn oo markaa ku saabsan dhinaca ganacsiga. wuxuu sidoo kale ka hadli doonaa arrimo oo ku saabsan khilaafyada gobolka ka taagan. haddaba waxaa soo dhaweeyay dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Amir Mohammed bin Salman ayaa wuxuu soo dhaweeyay madaxweynaha Mareykanka airportka Malik Khalid la yiraahdo ee caasimadda Riyadh. haddaba booqashadani waxay socon doontaa 13 ilaa 16 bisha May oo markaa ku kala bixin doono dalalkaas. haddaba afhayeenka aqalka cad ee Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in markaa madaxweynaha Trump booqashadiisa uu sidoo kale soo mari doono Qatar iyo Imaaraadka. waxaana la sheegayaa in sida la filayo Trump uu markaa tagi doono golaha maalgashiga Sacuudiga iyo Mareykanka halkaasoo berito oo Arbaco ah ay markaa wada hadallo ku qaadan doonaan. waxaa sidoo kale la sheegay markaa kadib inuu sii mari doono Qatar iyo sidoo kale uu tagi doono Imaaraadka. marka dikan marka waxa leeyahay maanta dhan horta Sacuudiga ayuu maanta dhan hadda waa la kaxeeyay maqarrul iqaama meel yiraahdo dijimeeshi u degi lahaa la dijinaya. markuu airportka tago uu daalayay xal dhan soo socday meesha la dijinaya. saacada kadib wuxuu tagi doonaa qol guriga boqortooyada ayuu tagi doonaa. Mohammed bin Salman uu la kulmi doonaa. shirkado badan la socda marka
ganacsado waaweyn oo Mareykanka la socdaan marka nimankan iyo Sacuudiga maanta ma loo kala baxayo ayaga maartay shiraaya ayaga maartay ganacsiyadooda waxooda kala saxiixanay بريتو صبحي هوري waxaa la yiri wuxuu la kulmi doonaa madaxda khaliijka oo dhan oo halka isugu iman doonta oo kulligood meesha uu ku ballansaday Sacuudiga halkaas ay maartay isku arki doonaan kadibna wuxuu u safri doonaa isla بريتو Qatar ayuu tagi doonaa Qatar ayuu joogi doonaa maalinka ugu dambaysa safarkiisana wuxuu u gudbi doonaa wuxuu tagi doonaa Imaaraadka marka intaas oo dhan marka waa jadwalkiisii waay marka lacag billions dollar ayaa ninkan uu ka rajeenayaa wadamadan Carabta waliba waxa lagu tilmaamay trillion oo macnaha lacag aad u fara badan inuu maartay maalgashiga uu ka heli doono dhinacyadan maartay wadamadan khaliijka arrimo muhiim ah way jiri doonaan marka laga reebo ganacsiga oo number 1 oo asaga iyo arrimahan muhiimka Falastiin arrimeeda Gaza oo kale arinta Iran arinta Yemen Xuutiga waxyaabaha soo dhan ayaa maartay malafaadkaas ayaa lagu falanqayn doonaa oo laga hadli doonaa meesha waxa iman doonaa Oman madaxdeeda way iman doonaan maadaama khaliijka ay ka tirsan yihiin arintii Xuutiga iyo Mareykanka iyo arintii Mareykanka iyo Iran iyo malafkaas iyaduna Oman ayaa qaabilsan oo wadankeeda ayaa intaas oo dhan lagu sameeyay marka arrimaha soo dhan ayuu ka hadli doonaa marka waxyaabaha marka laga diiwaan galiyo waxa waaye sida ninkan loogu khidmaynayo looga baqayo qolo walba ay rabto inay maartay ninkan ay hadiyad siiso Biden iyo asagu waa isku awoodale ninkan madaxweyne Mareykan oo ninkan madaxweyne Mareykan oo laakiin ninkan karbeednimo ku darsaday baasha ma ogtahay hebel waa professor kaliya looma baahna professorku waa inuu karbeednimo kala ku daro waay hadii kala professor tacbaana noqonaysa oo meel iska yaala oo aan waxba kala ogeyn marka nimankan waa madaxweynayaal hal wadan ay ka yihiin hatta wadamo kale awood badan ma Mareykan kana gudoomiye gobol in loo diro istaahilay وسجى غنعسنا كنا عبارة قرحة اللو تاجنا ومارتي نكن حرسوجا وتاجنا مركا أنت صورن مركا واشيكوين كا مارتي لياب كلواي أو لقيت ديوان قلي وحيابا كلو لقيت ديوان قلي وحكم ده مركي هول كاستقبال كسود وين تبارتي ربور كلا صوق قلي ونكن كرسي سفريستي نكن وحوق عن قاعدتكو بلابي محمد بن سلمان كمدحدي لسعودي نكاس دونالد ترامب كتب سدا عادة رقمتك وحلوكنا قحوة السعودية وحل إلهه قحوة السعودية كوب كيركا كوشيست محمد بن سلمان واللودي وواعبي ترامب واللودي بي وزيركي سارمات دبد واللودي وواعبي ترامب قعنتو كويشتان أفكيسة مساراي سورا كل على سوق عنته وهي مركز بميس كوس كسال ماشي أصلا ملاحظ يرى الجلية وأهنك إنه سن أفكيسة سارين إسلام مركب حلية بقاتير تيسي ونكرياشيسي عنتديسي وعزروا وطا عربت أرباب اسكو الله إلى أمريكا كفيجيسي بيهيسي وعزنا هرو سوقاتي عنتدي وعون لها وحيو روا وتالو قولي سدح ذا معلومات مركا نكل مركا كفيجي أو شرفات قحوة سعودية ليلة هذا أو كوب كيركا أو ضد كرين عبيين أو حتى بايدن مركو يمد عبي أو قف كستعبي أو بوتين عبي مدحونا الشينيس كعبي نكن كبر أنتو كقبو سوق عنته وايش تمك دميس كيس كسارالين marka sheekaas intaas laga diiwaan galiyay ninka odaga booqashadiisa aan soo ururiyay